faadimo maxamed cigaal qaasaali waa hooyo degan magaalada burco waxaana maray la hadlaysay warbaahinta qaar ay sheegtay in mid kamid ah guryaha uu ka dhintay maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii hore Soomaaliland isla markaasna ku yaala gudaha magaalada burco oo hore madaxweyne cigaal fasax u siiyay inay dhisan karto isla markaasna ay gelisay lacag ay iyadu leedahay haddana dib looga iibiyay mid kamid ah ganacsatada gobolka Togdheer hooyo faadimo ayaa sheegtay in si arxan darro ay ula dhaqmaan ciidamada booliska gobolka ayna iyagu aanu soo wargelinin alaabtii u dhextaalay guriga banaanka loogu guray halkay hadda alaabtani daadsantahay ah mid kamid ah beeraha xaafadda Cali Xuseen galbeedka magaalada Burco waxayna baaqu dirtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hooyo faadimo ayaa ah gudoomiyaha ururka Tawfiiqa gobolka Togdheer waana tan iyadoo ka warbixinaysa qaabka ay wax u dhaceen Muuse la hadlay Muuse wuu yaqaan faadimo maxamed cigaal Tawfiiq baa ururkayga leeyahay waa 12 meelo waa lay foodeeyay waxay foodeeyay ayadoon warqad laysiinin oo aan dawladii la wargelinin oo ciidaman guriga 18 May oo inankii ina cigaal dhalay iga aantay intaan anigu uu yiri iga iib aan ka iibsaday uu yiri qolo kale ilmaadeerada baan ka iibiyay baa la igu foodeeyay dabadeedna gurigu wuxuu gurigan la igu foodeeyay 30 sanadood buuraa baan ku jiray ina cigaal baa yiri dhiso inankiisii baa yiri eedayadan ka iibinay dabadeedna markii aan lacagtii aan u keenay aan u soo dhignay 100 yaala wari sidaan u sugaynin buu yiri adeerkay baan ka iibiyay eeda lacagtaada qaado nin kale ha ka iibin hadalkii aanu cali maxamed isku hayno maxamed ibraahim cigaal aanu isku hayno xali ninka la yiraahdo ayaa dabadeedna askartaas uu dhex galay nin ganay la yiraahdo igu soo foodeeyay maalkaygii iyo xoolahaygii iyo xafiisyadaydii waxaan anigu samafal baan anigu hay waan cabanaya waxaan kaaga cabanaya ururkii 16 meelood oo halka yile oo aan idin tusayo animaka warbaahinta ka alaabtaydii hidii iyo dhaqankii kuraasidii dumarkii oo 10 macallimiinada iyo dhaqanka kaasa ay warbaahintu idin tusi doonto kumbiyuutaradaydii hadii ilaahay ka dhigayo dhaqankii oo magaaladii iyo dhigay iyo 10 dumar oo macallimiin oo dhiga waxa la wixii guriga waxa weeyaan guriga 22 meelood may waa 20 baan ka dhisay Muuse Biixiyow 20 baan ka dhisay 30 sanadood baan ku jiray askar ganay la yiraahdo ay foodaysay xagga sare waxay yiraahdeen qiimeeyaa gelin waxeeda u qiimeeyaa duu cali u diiday guri gooniya baa jira oo niman iska dhisteen oo 10 sanadood lagu dagaalamayay oo dhisan oo ka isagu male ana ale buu yiri malaha waxa la wixii dabadeedna salaad hore la soo galay iyana maqlin baa la yiri waxa la igu xareeyay stationka la igu xiro waa la qaado waa la jiiday ana 30 jis ku dhiga oo aanay wadanayada halka daaqdaana ka naqano nin walo madaxiiba oran jiray asbaarada inoo soo sheeg ina cigaal oran jiray ninkii asbaarada ayaba aniga ii soo sheeg waari kaalay ku dhe aniga ayay ka goda igu yeed walaal igu yeed ayaa la jiiday oo la igu tuuray 30 sanadood ku jiray baa la igu tuuray stationka markii la igu tuurayna qofkii salaadii weey qofkii waliba markuu isa soo taagay faadimo maxamed cigaal yahay waa lagu tuuray ragana ninkii walba qor 20 nin baa qoriyo lagu qabtay waa kuwan dul tuban nin walba qor waradeer anagu idin la dagaalamaynay islaantimeeda waxa siiyaan la arkin guriga dabadeed markii dumarkiina la xareeyay ragina qori meedan iyo silsilad meedan lagu xidhay iyaga marag baa laga yoonina fariisa mu taagin ma taagayno waxaanu nahay qarandan gurigii qaranka weeye kala iga soo foodeeyay may waxa ogolaanshahay kana baan ilaahay jiidine wixii la igu soo xidhay kana ciidahay dabadna waa la yaftubo waa la tuuro cid la yima weydiin markii la tuurayna dadkayga dhamaadayna afariska rogo guri kulanka ay warbaahintu hooyo faadimo kula yeesheen halka ay hadda ka joogto xaafadda Cali Xuseen ayaa waxa iyaguna warbaahinta warbixin ka siiyay inta ay ka xaalog yihiin dhacdadani dadweynaha iyaguna halkaas ku sugnaa markii la xilay baan soo qabtay aniga oo suuqa iska maraya markaas islaanta soo la xilay aniga iyo wixii islaanta loo maleeyay caylada yihiinba hantidii qoryaha la igu qabtay ninka galay laafiya cadaalad darro oo fooxsho ayuu i xilay si la isku dili jiray gacmaha wuxuu iga qabtay katiinad xabad ba halka iga saaray si qolaab uu hadlo wuxuu u reerkayga ayaa loo qoraad qaat qorina ma qaadan 30 sanadood ayaa ku wareejiyay hantigeedii oo dhan uu hayay ay u ilaalinaysay aqaladeedu dhan iyada mas'uul uga ahayd aqalkana imka lagu dumiyay ayadaa dhistay bilowday kumana haysato guriga anaa bilaabay oo dhiso ilaa dhakada sare dhisay qarashkiiga galay siiya
axmed jaamacadan axmed digiro telefishinka caalamiga Soomaaliya News TV burco.